qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali anigoo Xasan Sheekh Umar ahna aan idin la socodsiinayo waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Firdawsa Maxamed Cilmi mahadsanid Xasan milatariga ayaa xukunka dalka Suudaan iyo hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku howlan soo dhisida gole madax banaan iyaga oo soo dhameystiraya shuruudaha uu yeelanayo maamul rayid ah oo talada haynaya 3 sano labada dhinac ayaa ku adkaysanayay in mid walba uu ku yeesho aqlabiyad golahan uu milatariga haatan madaxda ka yahay heshiiskii la gaaray salaasadii ayaa dhigaya in isbahaysiga mucaaradka ay helaan 3 meelood 2 kuraasta golaha sharci dejinta Sadiq Yuusuf oo kamid ah xisbiga komunista ayaa kamid ahaa dadka ku matalayay wada xaajoodka dibadbaxayaasha waxa uu BBC-da u sheegay in ay dalbanayeen 2 jibaar kuraasta maadaama dad badan oo rayid ah ay kamid noqon doonaan golahan taasi oo ka badan tii milatarigu soo jeediyay. The head of the Supreme Council should be a civilian and the majority should be on the side of the civilians. madaxa golaha sare ayaa noqon doona qof rayid ah waxayna aqlabiyada golaha noqon doonaan dhanka rayidka waxaan soo jeedinay 8 qof oo rayidka ka socda iyo 3 ka socota militariga waxay iyaguna soo jeediyeen 7 ka socota militariga iyo 4 ka socota rayidka waxaan kulan yeelan doonaa caawa saacada Suudaan marka ay ku beegan tahay 9ka caawa ayaana go'aan gaari doonaa this night to decide. xoghayaha gaashaandhigga dalka Britain ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo qorshooyin lagu siinayo shuruuc ilaaliso ciidamada Britain iyo rugcadayaasha u soo dagaalamay dalkaasi Penny Mordaunt ayaa la filayaa inay soo gudbiso shuruucda ka ilaalin doona khubaradan in baaritaan lagu sameeyo 10 sano madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa jeediyay khudbadii ugu horeysay tan iyo markii uu cirka isku sii shareeray toddobaadkii la soo dhaafay khilaafka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ka dhaxeeya isaga oo xusin xiisadaha labada dhinac ee saameynaya ganacsiga labada dal ee caalamka ugu balaaran ayaa madaxweyne Xi Jinping waxa uu ka sheegay kulan ka socday Beijing in Shiinaha uu si wanaagsan u wajahay xiisada maalintii Isniinta Shiinaha ayaa ku dhawaaqay canshuur kordhin uu ku sameynayo 60 bilyan oo dollar oo ah alaabaha Mareykanku u dhoofiyo Shiinaha taasi oo la mid ah canshuuraha uu Mareykanku ku soo rogay alaabo qiimaheedu gaarayo 200 oo bilyan oo dollar oo Shiinuhu leeyahay waxa uu madaxweynuhu ka hadlay xarunta wada hadalka ee Aasiya taasi oo ka shaqeysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinaha dalxiiska iyo isbedelada dhaqanka 如果各国重新回到一个个自我封闭的孤岛 haddii wadamada ay ku laabtaan godoominta isla markaasna iska soocaan dunida inteeda kale waxa meesha ka baxaya in lagu talaabsado horumar dadka ku nool dalalka qaaradda Aasiya waxay ku rajawan yihiin inay ka fogaadaan in la godoomiyo waxay soo kale ku rajawan yihiin in dalalkooda ay u hoggaansamaan siyaasadda ku saleysan furfurnaanshaha sare u qaadida isgaarsiinta xiriirka ganacsiga iyo dhaqaalaha 设施联通贸易畅通资金融通民心相通 Mareykanka ayaa amar ku siiyay inay ka baxaan dalka Ciraaq wax uu ku tilmaamay in ay yihiin shaqaale aan baahi degdeg ah loo qabin xilli ay sare u sii kacayso xiisadaha u dhaxeeya Mareykanka iyo dalka Iiraan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in adeegyada bixinta fiisaha si ku meel gaar ah looga hakin doono safaaradda Baghdad iyo qunsuliyadda Erbil ugu dambeyntiina xukuumadda Sacuudiga ayaa sheegtay in weeraradii salaasadii diyaaradaha dronisku ku qaadeen duumooyin shidaal iyo weeraro kale oo axadii lagu qaaday 2 taangi oo shidaal ay halis ku yihiin dhoofinta shidaalka ee caalamka balse aysan ku ahayn khatar oo kaliya amniga dalkaasi Sacuudiga bayaan ay soo saareen wasiirada xukuumadda Sacuudiga ayaa lagu sheegay in dadkii ka mas'uulka ah lala xisaabtami doono sida maleeshiyaadka xuutiyiinta ee Iiraan barataarto ee dalka Yemen kuwaasi oo loo maleynayo in ay ka dambeeyeen weeraradaasi falaagada xuutiyiinta ayaa sheegtay inay fuliyeen duqeymahaasi kuwaasi oo sababay in la xiro dhuumaha shidaalka warkii duhurnimada waa naga intaa